halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada barnaamijyadeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo hadal la yaab leh ka sheegay isagoo oo weerar lama filaan ah ku qaaday dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Damul Jadiid Maxamed Xuseen Roble hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Soomaaliya ay wajahayso cadaadis kaga imaanayo dhinacyo kala duwan oo mucaarad ku ah sidoo kalena ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda Soomaaliyana ay ka qayb qaadanayaan dagaalo lagu la jiro al-shabaab geesta kale ciidamo ka wadata ama ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland waxa ay isku hor fadhiyaan degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool sidoo kalena ciidamadani waxay isku hayaan cid maamulayso degmadani xilli saraakiil ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland ay hawada isku mariyeen hanjawaadyo in ay mid waliba midka kale u weerarayo waan eegi doonaa oo barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan oo barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ammaan kala dul dhacay madaxweynaha dawladda Djibouti isagoo oo sheegay Djibouti in aysan jiri lahayn la'aantii Ismaaciil Cumar Geele hadalkani waxa uu ka sheegay madal magaalada Muqdisho oo kula kulmay dhaqaatiir ka socotay dawladda Djibouti qodobadaasi kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa hadduu rabbi idmo saaxiibayaal bal marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like gareyso siina share gareyso si uu saaxiibo kale u gaaro aan ku bilaabo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uu weerar lama filaan ah ku qaaday dawladda Soomaaliya isagoo oo ku dhaliilay in qaabka ay u wajahayso dagaalada lagu la jiro al-shabaab uu sheegay inaysan ahayn qaabkii ugu habboonaa sidoo kale Maxamed Xuseen Roble oo ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay hubeynayso qabaa'ilo gaar ah sidoo kalena waxa uu sheegay bumbuuninta social media inay ugu sii darayso sidoo kale waxa uu ku dhaliilay in dagaaladii lagu la galay gobolka Hiiraan al-shabaab sidoo kalena qaababkii meydadka loogu dul ciyaarayo uu sheegay inaysan ahayn qaabka diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale dawladdiisuba qaababka ay ula dagaalamayso dagaalyahanada al-shabaab aysan ahayn qaababkii ugu habboonaa waxa uu kala talo uu ka siiyay ciidamada dawladda iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminayso oo uu sheegay in sida ugu saxan oo loo wajihi karo dagaalada al-shabaab ay tahay in lagu dagaalamo meelo ka fog dadka meelaha ay degan yihiin waliba tuulooyinka ka baxsan waxa uu sidoo kale dhaliilo u soo jeediyay diyaaradaha duqeynta ka geysanaya tuulooyinka ay ku sugan yihiin al-shabaab oo uu sheegay in tuulooyinkaasi ay ku nool yihiin dad rayid ah oo shacab u badan sidoo kalena uu sheegay inay ka soo gaari karto khasaaraha ugu badan oo al-shabaabna ay dibad joog ka yihiin waxa uu sheegay in dagaaladii ka dhacay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay ku dhinteen ku dhawaad dad aad u tiro badan oo shacab ah uu sheegay in aan la xusin oo dawladdu inta badan ay bumbuunisay dagaalyahanadii al-shabaab oo ay halkaasi ay ku dileen wasaare Xamse Cabdi Barre hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ay dagaalo kula galeen al-shabaab kuwaasi oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose sidoo kale dhanka kale Shabeellada Hoose hadii aynu ku hormarno dawladda Soomaaliya war ka soo baxay waxa lagu sheegay in halkaasi lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo aad u tiro badan dawladdu waxay sheegtay in deegaan lagu magacaabo galka Saalimow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose lagu diray 22 al-shabaab ka tirsan sidoo kalena waxay sheegeen in 10 kalena ay ku dhaawaceen dagaal ay kula galeen ciidamada dawladda dagaalyahanada al-shabaab deegaanka galka Saalimow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii la soo dhaafay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sameeyay abaabul ka dhan al-shabaab si uu deegaanada ugu badan ee maamulkiisa ay gacanta al-shabaab ku jira looga soo saaro sida ay sameynayaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedkaasi dhawaanaha waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan al-shabaab isagoo sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanka in ay kacaan sidoo kalena ay iska caabiyaan ay ciidamada dawladana ay garab istaagaan waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu ammaan kala dul dhacay madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele isagoo oo sheegay in dawladdaasi aysan la'aantiisa jiri lahayn Ismaaciil Cumar Geele oo uu sheegay inuu garab istaag weyn u muujiyay dawladda Soomaaliya sidoo kalena uu sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu yahay madaxweynaha kaliya ee garab istaaga u muujiya markii ay dhibaato la kulmaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay 20 sano uu joogo dawladda Djibouti inuu wax weyn u taray dawladda Soomaaliya sidoo kalena uu garab istaag u muujiyay madashani waxa uu ka sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre madal magaalada Muqdisho loogu qabtay dhaqaatiir ka timid dawladda Djibouti kuwa loogu talagalay
inay ka qayb qaataan gurmad loo fidinayo dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii magaalada muqdisho ka dhacay 29 bishii hore kuwaasi oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad aad u tiro badan. dhanka kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa uu sheegay dowladaha kale ee dariska oo ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya in aysan si wanaagsan uga qayb qaadanin sida ay uga qayb qaateen dowladda Jabuuti. waxa uu ku dhaliilay in ay u soo dirin dhaqaatiir aad u tiro badan sidoo kalena aysan ka qayb qaadanin qayb qaadashadii looga baahnaa iyo sidoo kale kaalintii ay ka mudnaayeen dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in haddii iyagu ay qudhooda dhibaato soo gaari lahayd in ay garab istaagi lahaayeen. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay abaal weyn uga hayaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo dadka shacabka ku nool dowladda Jabuuti oo uu sheegay inay yihiin walaalka kaliya ee maanta ay haysato dowladda Soomaaliya.